محمد عبد الله فرماجو doorashaha afgambi maya qofka tuuga in dadka lagu ceebeeyo qofkan waa tuug amaanada loo dhiibo ku takrifalay trustiga dadku violate gareeyay umadana wax ka qabanay kulanti haboon dawadayaal markastoo dunida ka joogtaan iyo sulbadna la socotaan halkani waa shacabka TV soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale bishaaro dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa loogu bishaareynaya in macadka barashada Qur'aanka Kariimka iyo xafdintiisa ee Nuurul Furqaan idin soo kordhiyay qaab casri ah oo online ah laguna baranayo xafdinta Qur'aanka Kariimka qolkii eebe haddaba haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto ardayda macadka waxaad kala xiriiri kartaa nambarka shaashada wax la barto oo lagu amal falo waxa ugu wanaagsan Qur'aanka Kariimka qolkii eebe mahadsanidin farxad weyn bay noo tahay dhamaanteen inaynu maanta marxaati ka nahay casriyeynta iyo wanaajinta bilicda dalka iyo caasimadda khaasatan oo mashruucan run ahaantii uu wax weyn ka tarayo muuqaalka caasimaddu ay leedahay uu ka tarayo bilicda uu ka tarayo shaqo abuurka sidii gudoomiyaha rugta ganacsiga uu ka dhawaajiyay inaguna arkayno hadday ganacsi tahay hadday adeegyada kale ee muhiimka loo baahan yahay ee shaqo abuurka iyo dhaqaalaha wax ka tarayaba tahay in uu wax weyn soo kordhin doono mashruucan marka uu hirgalo insha Allah kalsoonidii dalka iyo in lagu kalsoonaado dawladnimadii caasimadii lagu kalsoonaado iyadana wax badan ka tarayo waxa kale oo caawinaya maadaama noloshu halgan tahay 2003 ayaa qaramada midoobay shaqayn jiray Hargeysan ka tagnay aniga iyo khawaro kale oo hay'adda u shaqaynayay UN-ka iyo bahda maxkamadaha iyo hay'adaha cadaaladda South Africa magaalada Durban la yiraahdo dabadna meelaha aanu booqanaynay jaamacadda KwaZulu Natal baa kamid ahayd ardaydii markaa qalin jabinaysay oo dhameysanaysay digriga koowaad ayaa soo jeedin noo sameeyay waayo hay'adaha sharciga iyo waxaan isku xidhaynay jaamacadda Hargeysa iyo 2005 sano kadib ayaan haddana shaqo kale aanu tagnay ardaydii qaar kamid ah waa macallimiin jaamacadaha wax ka dhiga ama bangiyada ka shaqeeya ninkii xiriiriye ahaa ee mashruuca nagala shaqeynaya baa noogu yeeray gawaadhi bay wataan guriyana way leeyihiin oo way degan yihiin waxaan ku wada sidee idinku hirgashay marka maadaama macallin loo qaatay ama bangi uu ka shaqeynayo waxa loo furayaa in gurigiina damaanad leen mushahar baa soo dhacaya bishii gaarigiina bishii iyadana wax laga jaro 3 sano ah 5 sano ah imaka 10 sanadood waaba muddo aad u dheer wax taa la mid ah ayaa dawladda Soomaaliya hadda ka socda maalin dhaweyd booliska ayaan xaflad shaqadii wanaagsaneyd ee doorashada ay ka qabteen iyo sidii amniga uga shaqeeyeen aanu qabanay gudoomiyaha waa joogay saraakiishii booliskii ciidankii hadlayay waxay dhahaan mushaharka yar ee noo soo dhaca maadaama bishii aanu hubno inaan mushaharkii helayno annaga iyo shaqaalaha dawladda waxay kaliftay inaan wax ku deynsan karno ganacsi yar yar ku abuuran karno qol ku dhisan karno waa meesha marka ay gacmaha isqabsadaan dawladda iyo shacabku oo kalsoonidii iyo aaminka dhismo dalku horumar uu ku gaari karo yiddiile iyo rajana ku abuurmi karto ganacsatadu mar walba doorka waa ku jirtay oo markii dalku kala tagay oo aynu burburnay wali isku hayntii dadka iyo shaqadii iyo doorkii iyo gurmadkii looga baahnaa waa ku jireen maantana hanaqaadkii dawladnimada Soomaaliyeed baa fafaalaheeda runtii inoo muuqda 5 sanadood u dambeeyayna wax badan oo ay marxaati ka tihiin oo indhihiina ku aragteen ay ka qabsoomeen waayo ganacsatadu waa cid ugu dhow dawladda ee mar walba loo irkado waa cid ugu dhow shacabka ee haddii ay masiibo dhacdo abaara dhacaan fatahaada dhacaan qaylo dhaan loo dirsado kaalinta shariifka ee muhiimka ah ay ku jirtaan waa mid la idin wada ogsoon yahay run ahaantii waxaynu qoliyaha ama dibadda wax ku soo bartay ama ka shaqeeya ama qurba joogti waxa la yiraahdaa rent to own kirayso aad lahaatide mashruucu sansaan buugeeg iyo qofkii waa inuu maal gashadaa dabadeedna muddada uu ku bixiyaa gurigiina sidaa uu ku yeeshaa wax wanaagsan oo dadka aad ku soo kordhiseen weeye
waxyaabaha dunidu ay had iyo jeer aad aragtaan dhaqaalaha khaasatan marka laga hadlayo real estate-ka qofkana ugu darin waxa weeye hoy inuu helo gaadiidku haba dambeeyo imanka malaa lugtii baaba door la biday oo noloshan casriga xanuuno kale oo waaweyn oo gaadhiga had iyo jeer lagu jiraya uu sababo ayay leedahay waxa kaloo kordhinaya amniga inuu lagu si kalsoonidii amniga lagu qabay marka dhismaha aadka u quruxda badan dunida aragto waxa Soomaaliya laga sheegaya ama Muqdisho laga sheegaya iyo nolosha taala way kala duwan yihiin ayaa ay dunidu ka marxaati kacaysa kalsooni baa markaa abuuraysa in lagu soo hirto qurba joogteenu ku soo hirato adduunyada kale ee ay ahayd inay degaan ama maal gashadaan ku soo hirtaan oo ay yimaadaan wadankani dal dunida ka sheegan buu ahaa magaalo madaxdiisa iyo caasimadiisa Muqdishona dunida aad bay uga sheegnayd run ahaantii wasiirka arrimaha dibadda Benin ayaanu magaalada Nouakchott ee Mauritania oo gabayada caan ku ah oo taqaanaan qoladiina waliba thaqaafada Carbeed leh aanu isugu shirkii midowga Afrika marka wuxuu yiri waa wadamadii hanti wadaag waaga ahaa Soomaaliya saa hanti wadaag baa la bidayayo waxa loo iman jiray waxbarashada iyo hanti wadaagku sidoo uga hana qaaday iyo inay soo bartaan marka la foolaa la geyn jiro kulliyadihii kala duwanaaba la marin jiray magaalada la soo marin jiray hay'adaha dawladda la marin jiray wuxuu 76 hadda uu beelana ka dhawaajiyo dubana mala durxul kala ku jiray oo yiri waxay ahayd magaalada Muqdisho magaalada ugu qurux badan caasimadaha Afrika waaga oo lagu soo hirto in shirar lagu qabto la isugu yimaado oo maxaan ku idhaahday la yimaado oo shirkii midowga Afrika lagu qabtay oo ogeydeen burbur baa inagu dhacay laakiin 30 sano qiyaas 19 ilaa maanta Soomaaliya halka ay gaari lahayd dhismo ahaan iyo qaab dhismeed ahaan iyo infrastructure-keeda caasimadeedu waxaana qaadi lahayd technology-gan casriga ee yimid iyo 30 sano duniduba mashaariicda waaweyn ee Shiinaha ee laga sheekaynayo iyo ay hana qaadeen iyo technology-ga casriga ah halka aynu ka gaari lahayd marka imakaynu si cagta saarnay dhabadii saxda ahayd haddii dawladda iyo shicib aynu isqabsano gacmaha dalkeena aamino amniga ka shaqeyno aynu gaari karnaa halkii aynu islahayn malaha waqti baa idinka lumaya aad gaadhaan dib u dhis iyo yageel baynu ku jirnaa ganacsataduna door wanaagsan bay ay runtii kaga jirtaa oo ay leedahay mashruuc waa ballaaran yahay waxaan isleeyahay dhinaca deegaanka iyo bilicda iyo biyaada inuu wax badan iyadana ka tari doono oo hadda shidaalkii faraha badnaa ee la shidi jiray marka tamarta iyo leydhka laga hadlaayo waxaynu haysanaa dalkeenu khayraad ku duugan oo muhiim ah oo ama qoraxda ama dabaysha laga dhalin karo taa kulli injineerada electricity-ga mashruuca qaybta ka waa siday isu wax uga taray si bilicdii deegaanka iyo looga taro waanay jaban tahay waxna way ka taraysaa leydhkii iyo wixii loo baahnaa iftiinkii loo baahnaa iyo tabartii loo baahnaa in la helo waanu mahadbaliyeenayaa shirkadda dahab maarin waxaan leeyahay mabruuk hambalyo ilaahay idin barakeeyo inteena u baahataana diyaar baan u nahay tamartu meelayna dhigtaba inaanu maal gashano oo idinka iibsano oo aad maaragtay wax jaban oo de mushaharka iyaga qaadi karaya mushahar xildhibaan ama mushahar dawladeed waa garanaysaan inaydun annagana nagaga iibisaan hadduu ilaahay yidhaa waxaan ugu dambeyn waqtiga ay nagaadaya aan ku soo gabagabeynayaa shirkaddan mashruucan marina dahab marina si rasmi ah ayuu inoogu daahfuran yahay ilaahay ha barakeeyo hambalyaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka TV waqtigani waa naga inta wad ku mahadsantihiin daawashada wararka gobolka iyo goor kasta ku xidhnaada shacabka TV la socodsiinaya wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibadda waa inoo qaybaha kale ee wararka nabadgelyo